warahmatullaahi wabarakaatuh. Ilaahay bi mahad oo dhan u sugnaatay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa Allah ka yeelo. Inta kadib walaalayaal waxaan halkan idinku soo gudbinayaa talooyin naga saacidaya xoojinta xiriirka naga dhaxeeya anaga iyo Mawlahana abuuray oo nagu amray inaan amarkiisa qaadano iyo waliba dadii rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam aan si hagaagsan u raacno noloshu waxa ka buuxaya didiiro tiro badan waxa sidoo kale qofka wajaha culayso sababa in diinta uusan xooga saarin iyo waliba xiriirka alla ka dhaxeeya oo daciifa markaas adduunyadu waa goob shaqo iyo dadaal lagu bixiyo taas oo wixii aad ka dhamayso cimrigaaga laga xisaabin doono maalinta qiyaame haddaba fur dhagahaaga oo raadici xanaanka lagu xoojiyo xiriirka Allah adduunyadu way dhamaan oo waqtigu uu sii dhamaanayaa mar walbana walaal waxaan la gudboon inaan xasuusano geerida taas oo si kadis ah oo aan ogeysiis lahayn ku imaanaysa waxaana laga maarmaan ah inaad ku xirnaato Allah si daacadnimo ah joogtoysana tilaabooyinkan soo socda tukashada salaadu waa waxa ugu horeeyay qofka laga xisaabin doono maalinta qiyaame haddii ay hagaagsanaato salaadaadu waxa hagaagsanaanaya camaladaada kale oo dhan waxayna u horseed noqotaa waana laf dhabarka diinta xiriirka Rabbi iyo adoonkiisa u dhaxeeya waxaana waajib ah inaad u gooto Allah dartiis niyad feejignaan aad ku tukato lambar 2 tala saaro alle xili walba iyo goob walba tala saarashada waxa kamid ah inaad Allah dartiis amal walba oo wanaagsan aad u qabato aan ku dheehan tahay 3 ka fogow waxyaabaha xun oo alla ka reebay rumaynta alle waxa kamid ah ka fogaanshaha wax walba uu ka reebay wada kasta oo loo maray iyo sababaha ku fududeyn kara indhahana aad ka laabato 4 si feejilsan inaad u akhriso hadalka Allah ee wanaagsan quraanka akhrinta kalaamka Allah waxay ku kordhinaysaa jacaylka Allah iyo suubanaheeni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maxaadna sidoo kale ka helaysaa cibro qaadasho iyo inaad wax ka barato dadyowgii hore ahna lambarka ugu dambeeya waxaad fadhiisataa kalfadhiyada ama boosaska Allah lagu xuso Allah waxa uu dambi dhaafaa qofka ka qayb gala meel Allah iyo dikrigiisa lagu xuso sida kalfadhiyada barashada diinta Allah iyo kalfadhiyada la isku baraarujiyo diinta Allah shantan qodob ee kugu saali kara inaad Allah xiriirkiisa xoojiso wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh